ciyaaryahanka Somaliland Hargeysa ka ciyaara iyo ka maanta Caynaba ka ciyaara iyo ka maanta Ceelal ka ciyaara iyo ka maanta Dhanaano ka ciyaara iyo ka maanta gobolka Hawd ka ciyaara iyo ka maanta Daadmareer ka ciyaara iyo maanta Kisana ka ciyaara masina isku xuquuq ma aha sharcina ma madaxda halka wada joogta iyo martida waxaan u salaami doonaa wasiirka dhalinyarta ee ciyaaraha iyo macallinkayga Axmed Ismaaciil Axmed Aflax oo runtii aan halka ka arko waxaan doonayaa hadalkaygu uu koobnaan doonaayo ninkii khadamataan halka ka hadlay agaasimihii ayaa runtii taariikhdii kubadda cagta Somaliland aad uga sheekeeyay laakiin hal iyo mid ayaa ku darsan doonaa ciyaaraha Somaliland markii ay soo bilaamayeen horyaalkii ugu horeeyay ee kubadda cagta Somaliland ee la qabto waxa qabtay agaasimihii guud ee hore Cabdirashiid Caydid Yaasiin xilliga horyaalka la qabtay miisaaniyad buu lahayn lacag buu lahayn garsoorayaashu xilliga lacag bay qaadan jireen waa marxaladaha ay ciyaaruhu soo mareen xilligii dhexe xilligii la aasaasayay kooxda kubadda cagta ee booliska iyo kooxda kubadda cagta gaashaan Mustafa Yusuf Dhagacade Mustafa Shaash ama Mustafa Ciid Saaw taqaanaa ayaa wuxuu gacantiisa ku aasaasay isaga iyo Cabdiraxmaan Jaamac Rawlashiina Karaacin kooxda kubadda cagta ee booliska ee maanta mushaarka qaadata ciidanka qaranka waxa madaxa laanta ciyaaraha ciidanka qaranka Somaliland ahaa markii ciyaaraha la abuurayay ee la sameeyay mushaaraadka Saciid Siyaad oo Cabdi waxyaalaha ugu xiisaha badan waxa kamid ah maalmaha kamid ah iyadoo xilliga TV iyo live aanay jirin Facebook iyo aanay jirin ayaa ciyaar kulul waxay dhex martay kooxdii kubadda cagta Sooyaal iyo kooxdii kubadda cagta ee MBB xilliga 2 daqiiqo iyadoo ciyaartu ka harsan tahay ayuu garsoorku ciyaartii dhameeyay kooxdii Sooyaal baan ahay damashaad baan xaafadaha igala tagay subaxii waxaanu jaraa'idkii jamhuuriye ku aragnay Sooyaal oo la carowday guul aanay calafsan waa Sooyaal wata aqbali weydii guul aanay calafsan bay la carowday yaa warqada soo saaray baa leeyahay Cabdirashiid Caydid Yaasiin ayaa soo qoray xilliga xiriirkan isaga haystay isaga ayaana garsoorkana xilliga haystay barigi dhootale ciyaaraha kubadda cagta Somaliland gobol walba iyo degmo walba soo maray oo baa cabanaysa wariidaad baa cabanaysa sayla cabanaysa ceerigaaba cabanaysa meel walba way cabanaysa maxay ka cabanayaan ciyaaryahanka Somaliland Hargeysa ka ciyaara iyo ka maanta Caynaba ka ciyaara iyo ka maanta Ceelal ka ciyaara iyo ka maanta Dhanaano ka ciyaara iyo ka maanta gobolka Hawd ka ciyaara iyo ka maanta Daadmareer ka ciyaara iyo maanta Kisana ka ciyaara masina isku xuquuq ma aha sharcina ma daraasadii aanu soo sameynay hadaba sideeba waxa soo dhan lagu simi karaa inuu og joogo kubadda ciyaara ama baasketka ciyaara ama shaqaalaha muxuu xaqiisu leeyahay ma gobolka Hawd baa ka soo jeeday ma gobolka Hawd oo miisba oo wasiir baatay ma wasiirka dhalinyarta ee ciyaaraha reesaylo halkaas oo ah u miisaba ma waa in la helaa siyaasadii dhalinyarta kubadda cagta qaranka Somaliland iyo policy-ga miday lahayd waa in la helaa waana talagu sameeyay walaalkay Maxamed Ilig waxaan ku marqaad furayaa walaal anu wasiir ku xigeenkii wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha xoogayii mucaaradka xisbigii wadanina waa legacy ayaanu doonaynaa aniga iyo wasiirka dhalinyarta ee ciyaaraha iyo agaasimaha guud inaanu ka tagno oo aanu taariikh kaga tagno ayaanu doonaynaa waxaanu halkan u joognaa waa inaanu taariikh ka tagno wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha message fiican buu halkan ilagu mariyay aniga iyo wasiirka
iyo agaasimaha guud isku xidhnaanshaha iyaga wada shaqaynta iyadu waa qaranka iyo dhalinyarta Somaliland oo guulaysataa weyn waxba yaa waqti la iskaga lumin in wasaaradda gudaheeda lagu mashquulo wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu wasiir bay leedahay isagaa siyaasadda lagu hogaamiyaa maxaan arkay intii aan xilka dhalinyarta iyo ciyaaraha wasaaradda aan haynay gobolka Togdheer ayaa ka soo furay tartankii horyaalada iyo gobolka Saaxil weeshmaanka jooga Alamsa Stadium ilaaliya 17 sanadood wax gunaa iyo wax mushahara muu yeelan waa weeshmaanka Alamsa Stadium ilaaliya wasiirka waa u sheegay waa wax lala yaabaa weey sidee baad ku shaqayn kartaa sidee bay wasaaradaha ugu jiraan dad aan shaqayn dad dibadaha jooga dad mushahar qaata sidee buu 17 sano weeshmaanka jooga Alamsa Stadium aanu xuquuq u helin sidee baan u helin kamaanta soo joogay sidee baan ka salaad joogo helin ilaahay baa nagu cadaabaya waana la daariyo qaranka war u dhaafsan kaasna inuu xaqiisa helabaan doonana ka xagga joogaana inuu xaqiisa helabaan doonana walaalayaal wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha waa wasaarad qiimaha ay ku fadhido aan qaranka maanta sii weyn laakiin yaa u samayn karaa waxa u samayn karaa wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha oo anaguna lagu hogaaminayo ee agaasimaha guudba uu la jiro wasaaradda waxaan u sheegayaa shaqaalaha jooga anagu waanu idiin nimid waanu idinka tegaynaa muddadaanu joognaa waa wax yar weeye nagala shaqeeya wanaagga iyo inaan taariikh ka tagno oo aan wasaaradda ugu hogaamino nagala shaqeeya waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda gaar ahaan hablaha oo wasaaradda ku badan dad samir badan oo dulqaad badan wey khadra kaliil ayaan halkan iyadana aan jeclayna kalmad ka idhaahdo Somaliland Curtain and Sport Association khadra kaliil baa aasaastay qofkii u horeeyey ee Somaliland keenta inay habluhu ciyaaraan ama tennis ciyaaraan ama basketball ciyaaraan khadra kaliil bay ahayd iskuulka 26 Juun ayaan ahaa ardaydii xilligaa dhiganaysay khadra kaliil waxaan xasuustaa iyadoo dhagax lagu erinayo waxaan xasuustaa iyadoo la leeyahay hablahay gaalaysiinaysaa maantana waa guul inay hablihii deedayaan garoonkii ku ciyaarayaan waa sabirka waxaan walaalayaal aad u jecel waxaan halkan uga mahadcelinayaa isuduwaha ciyaaraha gobolka Saaxil walaalkay Shaafici ayaan halkan uga mahadcelinayaa wuxuu ku mutaystay horyaalkii gobolka Saaxil ee uu soo gabagabeeyay wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha iyadoo ay dowladdu kala wareeg tahay iyadoo xilligan xilka haynaa uu yar yahay ayuu diiday inuu tartankaasi maalin kaliya tan soo galo waan kaaga mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan anaga wuxuu noo doortay inaan wasaaradda hogaamino anaga wuxuu noo doortay inaan cadaaladda ku ilaalino anaga wuxuu noo doortay inaan fulino ballanqaadadii aan sameeyay hadday noqoto garoonka kubadda cagta ee Maxamed Mooge hadday noqoto garoonka kubadda cagta Xawaale hadday noqoto garoonka kubadda cagta Xaaji Daahir waa ballanqaadadii uu madaxweynuhu ballan qaaday inuu oofin doono waanu oofinayaa waanu dhagax dhignay waanu dhamaystiranaa haddii ilaahay waxaan jeclahay inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha haddii maanta ay qurux badnaan weydo weligeed qurux badnaan mayso diyaar baanu nahay inaan u hagar baxno diyaar baanu nahay inaan waqtigeega gelino waxaasaanu keennay odhan mayno waxaasaanu qabanay odhan mayno waxaasaanu yeelnay odhan mayno laakiin taariikhda ayaa cid walba xusi doonta wasaaradda wuxuu kaga tago waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa oo aan jeclay inaad si weyn u soo dhaweysaan wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha oo aan jeclahay inuu soo gabagabeeyo wasiir
waxaan jeclahay inaad aad u soo dhawaysaa wasiirka uu soo dhaweeyo farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber. ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn. Shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba. Si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com. sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka.